tuuladani waxa ay ahayd tuulo aad iyo aad u cabsi badan. Tuuladani waxaa ku noolay dad qalato taasoo inta badan dhex wareegi jirtay habeenkii magaaladii gudaheeda. Guryaha habeenkii ayay soo garaaci jirtay, meeshaas ayay iska soo dhigi jirtay qof caadi ah. Markii ay guriga soo qaraacdo kabacdi qofkii soo baxa ayay la soo tegi jirtay maadaama ay ahayd dad qalasho aad iyo aad u halis badan. Meeshaani waxa ay ka soo qaadatay odaygani maadaama gurigii ay soo garaacday uu asaga ka soo baxay way la soo tagtay reerka xaafadaha ama reeraha deriskana waxa ay ku magacaabaan dafadii qarsooneyd ayay ugu magacaabaan ama waxay ugu yeeraan dafadii qarsooneyd. Dad qalashadani waxa ay ahayd dad qalato aad iyo aad u halis badan maadaama ay habeenkii socon jirtay ayna ugaasan jirtay. meeshaani waxaa ku noolaa odayaashii magaalada iyo dhalinyaradii magaalada ayaa meeshaani iskugu yimid. Waxa aynay ka wada doodayeen ama ay ka wada hadlayeen waxa ay ahayd qofkani habeen kasta wax qaadanayo ama dad qalatadani habeen kasta wax la tagaysa maxay ahayd xageesa ka imaatay ayay ka wada hadlayeen mar waliba. Ayagu waxa ay ahaayeen rag aad iyo aad u caqli badan, meeshaanina waxa ka ugaarsanaya iyadu maskaxooda ayay ku wada hayeen. meeshaanina oo wiilasha dhalinyarta mooyeene waxaa kula noolaa duq aad iyo aad u weyn kaasoo ciradiisu ay banaanka joogto. nin waliba ninka kale ayuu su'aal weydiiyaa maadaama ay doodoodu aad u fogaatayna meeshaas waxaa imaatay ama ka soo qayb gashay doodan ninkii lala tagay qoftiisii uu qabay ayaa meeshaan imaatay iyadoo warwarisan oo ku qayliyeyso odayaashii xaafadda oona ku dhahayso warniyo aniga odaygaygii waa lala tagay ee cidda la tagtay matalaadisaan iniga duqeydii xaafadda way wada tashteen waxa ayna guryaha hortooda lagu wada xidhay muraayad taas oo laga yaabo hadhowta inay wax duubto. meeshaanina waxaa imaatay dad qalashadiisaas markay u soo istaagtayba isla aminkiiba waxa ay ku aragtay wejigeedii muraayadii ayay wejigeedu ku aragtay waa ayna khalqashay. laakiinse ma ahayn dad qalatadani mid saan ku walwalayso ama mid saan ku cabsanayso maadaama ay xaradan u taqaano zaa'id iyo zaa'id. habeen waliba way imaataa wayna ka ugaarsataa. habeen barkii ayay soconaysaa waxa aynay ku dhex soconaysaa magaalada gudaheeda iyadoo mar walibana garaacayso guri magaalada gudaheeda ka mid ah. magaalada gudaheeda aad iyo aad ayay u kala taqaanaa sababtoo ah marar badan ayay ugaarsigeedan faraha badan sii wadatay. meeshaanina waxaa imaaday odayaashii hadaayada tashanaya ka mid ah ayaa gurigiisii markaan la soo garaacay. asagana markaan waxa uu taagan yahay gurigan lama furayo maadaama laga yaabo inay ayadi noqoto waa ayna tahayba dad qalatadii. laakiin asagu waa uu ka taxadaray waxa uuna taagan yahay gurigani cid furaysa ma jirto. meeshaani ayuu waxa uu gacanta soo qabsaday xaaskiisa iyo wiilkiisii waxa uuna taagan yahay cid furi karta gurigani ma jirto ee labadiinoo meeshaan istaaga ayuu ku leeyahay. wiilkii yarkaa waxa uu ahaa wiil aad iyo aad u madax adag oo aad iyo aad u fikir badan ayuu ahaa. aabihii ayuu kula taagan yahay meeshaan dad qalashadiina gurigii ilinkiisa ayay taagan tahay mar walibana gurigii ayay garaacdaa. waxa ayna rabtaa cid gurigan ka soo baxdo ay ku tagto ayay rajeynaysaa iyadu, laakiin maba ogo in meeshaan loo tashtay baashaani. guri walba hortiisa waxaa lagu xidhay muraayada weyn taas oo gudaha guriga gudihiisana laga daawan karo cidda guriga hortiisa taagan iyo cidda kale. iyadu waxaanba warooma hayso maadaama ay horay ay shaqadeedii iskaga wadan jirtay. meeshaani ayay magaalada dhex wareegaysaa iyadoo xanaaqsan oo isla maxaa guryahan caawada loo furi laayahay. dhinaca kale dhalinyartii magaalada iyo odaygii ayaa meeshaan wada taagan waa aynay wada hadlayaan mar walibana odaygii ayay su'aalo weydiiyaan maadaama uu ka weynaa waxa ay rabeen in ay waaye arag ay ka waraystaan ayay rabeen. wiilkii yarkaha ee madaxaadka ayaa meeshaan asaga markaan hadlahayo waxa uuna taagan yahay cid waliba oo soo ugaarsato meeshaan waan qabsan doonaa. aabihii ayaa ku yidhi wiilkaygii oo isdeji waxaan way iska dhammaanayaan. dhinaca kale wiilkan waxa uu ahaa wiil aad iyo aad u maskax adag dad qalatadiina meeshaan ayay gurigeedii iska joogtaa. dhinaca kale waxaa soo baxay dayixii oo magaalada gudaheeda ayaa noqotay mid aad iyo aad u cabsi badan. ayaduna xiliyadan waaba xiliyada ay adeegataba. meeshaani wiilkii madaxa adka ayaa waxa uu soo qaatay eygiisii yarkaha waxa uuna yidhi cid waliba oo caawa magaaladan soo ugaarsato aniga ayaa ka hortegi doono oo soo qaban doono ayuu taagan yahay. meeshaani ayuu eygiisii iska soo kaxaystay wadada goonyaheeda kala duwan ayuuna soo qaadayaa. waxa uu soo socdaba uu eygiisii soo horordaba waxa uu si kadiisa kula kulmay dad qalashadii oo meel taagan.
tageen si automatic eygiisii hor socday ayaa lagu tagay isla aminkiiba dad qalashtadu ilaa baryo badan wax maysan cunin meeshaan ayay baahi darteed ugu dhimanaysay eygiisii ayaa lagu tagay asagii ayaa faraci dil ku soo baxsaday maadaama eygiisii lala tagay asagii ayaa soo cararay waxa uuna imaaday xaafadda hooyadii ayuu ku calaacalayaa dhinaca kale aabihii magaalada ayuu ku maqnaa hadda ayuu imaaday arrintii ayaa loo sheegay waxa uuna canaananayaa asagoo hooyadii waxa uu ku leeyahay cunugan maalmahan oo dhan soo kuma lahayn yuusan ka bixin xaafadda gudaheeda maamadii ayuu aad iyo aad u canaananayaa maadaama uu marar badan u sheegay inuu wiilkan aad iyo aad u maskax adag yahay ayna ka taxadurto bixitaankiisa faraha badan dhinaca kale magaalada jawgeeda ayaa ahaa mid aad iyo aad u cabsi badan wiilkiina meeshaan ayuu taagan yahay waxa uuna rabaa gurigooda hortiisa inuu ku xidho kaameradii weyneed dadqalashadiina meeshaan ayay iska socotaa waxa ayna rabtaa ugaarsigeedii cawada waa habeen ka duwan habeenadii hore cawada waxaa gurigii ay soo garaacdayba ka furay duqii xaafadda lahaa meeshaani ayuu taagan yahay mar welibana wuu ku qaylihayaa dadqalashadii ayadu qayle maxaaba ka galay way faraxsan tahay maadaama ay cawada laga furay guryihii ay in badan soo garaaci jirtay laakiinse laga furi la'aa meeshaani ayay markaan farxadeeda u bilaabatay ilkaheedii dheedheeraa iyo indhaheedii gudguduudka badnaa ayay bannaanka keentay dhinaca kale odaygii ayaa meeshaan ku qayliyahayo waxa uuse taagan yahay maxaasad ahayd waan ku dilayaa in badan ayaad qof xaafadan ka mida ugaarsatay ee cawada godkaaga ayay biyo kuugu soo galeen ayuu ugu booteenhayaa laakiinse booto maxay taraysaa meeshaani asaga ayaa cawada gacan ku jiro waxa uu qayqaylyaba asagii ayaa lala soo tegay dafadii qarsoonaydna meeshaan ayay la soo baxday meeshaanina waxaa iskugu yimaaday wiilkii iyo hooyadii iyo aabbahood oo laga cunay wiilkii ayaa waxa uu taagan yahay aabbahay waan filayay baryahan oo dhan baashaan aniga ayaa dili lahaa ayuu taagan yahay hooyadiina meeshaan ayay ku qayliyeysaa waxayna taagan tahay adiga keliga ayaa ii soo haray ee ha iga dhimanin ayay ku leedahay waxa ay soo qaadatay dabka noocyadiisa kala duwan meeshaani ayay waxay soo kaxaysatay dhalinyartii magaalada iyo odayaashii waxa ayna u imaadeen dadqalatadii oo haysato ninkeeda meeshaani ayay ku qayliyeysaa dadqalatadii oyna ku leedahay ayada iyo wiilkeediiba noo sii soydaa aabbaha annaga ayay ku leeyihiin laakiinse aabbahood ayaa meeshaan taagan mar welibana waxa uu lahaa meesha